faraweyne xisbiga kulmiye biyo inuu ka helo ayuu sugayey iyo laalayskuba waanuna soo wadnaa kuwa kale waana la dhergi doonaa biyo waa laga dhergi doonaa waxa yiri warqa haddii ceelkaas feelgaroobo ninka ugu horeeya la xidhayaa waa adiga biyahaana wasaaradda xukumaysa kuwa dadku siday doonaan iska yeelayaan ma sidii uu biyo u heli lahaa nadiif oo ku filan waa mid ka go'an xukuumadda iyo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland Saleebaan Cali Koori iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa dhagax dhigay ceel biyood laga hirgeliyay deegaanka Laaleyska oo ka tirsan degmada Faraweyne ee gobolka Maroodijeex hirgelinta ceelkan oo ay iska kaashadeen wasaaradda biyaha Soomaaliland iyo hay'adda Samsam Foundation ayaa waxa dhagax dhigan goobjoog ka ahaa isuduwaha gobolka Maroodijeex ee wasaaradda biyaha Soomaaliland agaasimaha waaxda ceelasha biyaha gudoomiyaha degmada Faraweyne mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda biyaha iyo badiba dadka Laaleyska ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda ceelasha biyaha Cabdilaahi Axmed Aadan waxaanu faahfaahin ka bixiyay ceelkan iyo ceelal kale oo wasaaraddu gacanta ku hayso maanta ay taariikhdu tahay 3 Diseembar 2023 maalin laxada waxay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu iyadoo kaashanaysa hay'adaha kala shaqeeya biyaha oo imika halkan nagala joogto hay'adda Samsam Foundation halkan maanta ceel ka dhagax dhigayaan ama qodaalkiisa ka bilaabayaan ceelkaasi maraaxil badan ayuu soo maray wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu maraaxil ka badan roolkeeda ayaa ka soo qaadatay ceelkan dhaqaalaha lagu qodayo ceelkan wuxuu ka yimi markiiska Ibn Salmaan wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ayaana codsigu ka yimi markiisku markuu soo aqbalay wuxuu soo dhaxliyay hay'adda Samsam Foundation oo ah hay'ad maxay ahayd toolay muxsina oo ka shaqeysa dalka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu waxay jaangoysay sadeedka ceelashan lagu qodayo 7 ceela oo ceelkan uu ka mid yahay uu qodaalkiisa maanta bartan ka bilaami doono ceelka insha Allah bidnillah waxa la qodi doonaa 330 mitir si daraasadda ay wasaaradda iyo hay'addu bartan ka sameeyeen ay noo sheegayso 200 iyo 40 wixii ka hooseeya ayaa rajadu tahay inaan biyo ka helno insha Allah biidnillah wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha kaliya kaga ma hadhin ee ceelkan waxay la socon doontaa maraaxilka qodaalka ceelka si dhow waxay halkan kaga tagi doontaa khubaro iyo injineero biyaha oo supervise gareyn doona ceelkan isuduwaha gobolka Maroodijeex ee wasaaradda biyaha Yuusuf Xasan Ismaaciil ayaa isaguna la dardaarmay dadka deegaanka Laaleyska waxaan garanayaa oo nimanka xasuusanay igu soo dhacday halka kantaroolka markaan soo marno ayaa nin maalin halka ay joogsaday nin maartay reemii wuxuu igu yiri Yuusufow halka waad martaa oo adoole Faraweyne tagaya annagoo Laaleyska halka meedana arkayn waanu oomanahay waanu idin baahanahay goorma noo imanaysan markaasaan ilo goortan idin meelna alla og laakiin idinkuna waxaad ka mid tihiin dadka aanu ordaynaad ka mid tihiin marka ilaahay idin qoru baa la idin imanaya maanta ilaahay qoray wanaga isku nimid waxa daba jirta ceelasha imika la qodayo ceelashii horeba waxa jirta maamul baa loo sameeynaya maamulka wasaaradda xukumaysa biyahaana wasaaradda xukumaysa kuwa dadku siday doonaan iska yeelayaan ma marka barakallahu fiikum waxaan kula dardaarmaya marka ceelka la qodo management baa loo sameeynaya wasaaradda xukumaysa cid xukumaysa oo deegaanhi ma jirayso sida ogaad biyahana dawladda leh maamulkana dawladda leh waxaa sidoo kale dhankooda ka hadlay faahfaahin ka bixiyay mashruucan wakiilka hay'adda Samsam Foundation Maxamed Axmed Aw Aadan iyo gudoomiyaha degmada Faraweyne degmadan deegaanka Laaleys oo ka tirsan degmada Faraweyne gobolka Maroodijeex waxa uu nasiib u yeeshay maanta in wasiirkii wasaaradda horumarinta biyuhu Saleebaan Cali Koore oo mar labaad ku soo noqday wasaaradda biyaha hore uga soo ahaa muddo dheerna ahaa anu malaynayo inta Soomaaliland jirtay intuu xilka ka maqnaa inay yarahayd laga soo bilaabo xukuumaddii madaxweyne cigaal soo yar ilaa imka wasiir ahaa marna xildhibaan ahaa inuu maanta mar labaad u yeesho isagoo wasaaradda ku soo noqday ceelkii ugu horeeyay u dhagax dhigo deegaanka Laaleyska markaan u sheegnay inuu wasiir maadaama wasaaradda ku soo noqotay ceelka oo hore ugu qorsheynay nagala qayb gal isla maanta u sheegnay wuxuu 2 cisho isuga waa ka maanta noo yimid waxaan u mahadnaqayaa wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo dhawaan loo magacaabay wasaaradda markii labaad
wasiir waxaan ku leeyahay ku soo dhawow deegaankii degmada Farweyne ku soo dhawow deegaanka Laaleyska waxa kale oo halkan laga mahadnaqayaa iyada shirkadda Samson Foundation agaasimaha waaxda iyo isku duwaha maamulka degmada taliyaha degmada iyo dhammaan haweenweynaha dhalinyarada aqoon-yahanka iyo odayaasha deegaanka ee halkan jooga sida fiican ee quruxda badan ee milgaha leh u soo sagootiyay ama u soo dhaweeyay waftiga halkan inoogu yimid ugu horeyn aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa laba kelmadood ma halkan ka oranayaa kelmadda koowaad dadka deegaankan faraya waa nimco ilaahay ina siiyey nimcada maanta halkan aynu joogno ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu ilaahay naga siiyo biyo aynu ku najaxno dhankooda waxaa mahadnaq ballaaran wasaaradda biyaha Somaliland iyo hay'adda Samson Foundation u soo jeediyay dadka deegaanka Laaleyska waxaan u mahadnaqaynaa marti sharafta inoo timid ee wasiir leh ee hay'ad leh Samson Foundation hay'adda leh haddii alla idmayo agaasimayaal leh ee taliyayaal leh iyo intii kale darajo leh ama haddii alla idmayo isugu timid ama deegaan ha ahaato ama dad kale ina soo booqday ha ahaato intaasaa haddana mahadnaq leh waxa ilaahay wax loogu xamdiyaada mar labaad allaha intaaba ku kulmiyey goobtan Laaleyska allahaasaa mahadleh waa mahadsan yihiin oo waannu u mahadnaqaynaa intii halkaa in biyo laga soo saaro iyo ceelkaaba intii ku tacabtay iyo intii ku talisay iyo intii haddii alla idmayo niyada gelisay iyo intii haddii alla idmayo u tacabtayba waannu mahadnaqaynaa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland Saleebaan Cali Koore ayaa la dardaarmay shaqaalaha riigga gacanta ku haya iyo dadka degan deegaanka Laaleyska waxaanu si rasmi ah u dhagax dhigay ceelkan laga hirgeliyay deegaanka Laaleyska waan garan karaa ama waan qiyaasi karaa in dhulkan yahay dhul oomana ah oo biyaha aad looga baahan yahay ciddii iga horreysay ee u garatay inay qorshahan halkan yimaadana aniga qudheedu waa u mahadnaqaya waxaan la bilaabay hawshan dhowaan ayaan wasaaradda imid sidii waa meeshii ugu horreysay ee aan mar labaad anigoo wasiira hawsha ka bilaabo oo ceelkii ugu horreeyey ee aan ka qayb galo ayuu noqonaya ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay ceelkan mid aynu ujeeddadaynu ka lahayn aynu ka gaadhno oo biyo ka helno in ilaahay ka dhigo haddaan ka wasaaradda ka socdaa daacad noqon oo ka riigga qodayaa daacad noqon oo ka lacagta bixinaya aan laysla ogaan sida wax ku baxayaan deegaan ilaa wasaarad waxaa iman kara khaladaad ku yimaada inta badanna wararka aan hayo riigagga ayaa khaladku ka yimaada taasi waxay keenaysaa inaynu riigagga iyo dadka ka shaqaynaya inaynu si dhow ula soconno oo khaladaadkan intay sameeyaan $300,000 iyo $200,000 intii meel la geliyo uu ninka riigga wataa intuu marna geliyo marna ka saaro iska dhaqaaqo inuu meesha ka baxo ayaan rajayn doonaa insha allah intaa wasaaradda joogo oo ah marka ugu horreysa inuu u hoggaansanaado amaawiirta iyo aqoonta wasaaraddu leedahay guud ahaan waxaa ka faa'iidaysan doona dad badan iyo xoolo badan insha allah injineerada wasaaradda iyo qolada riiggu markay ii sheegeen injineeradu dhibtu meesha ay ka timaado waxa weeye nimanka riigga jooga oo aan dhegaysan dadka aqoon-yahanada riigga waxaan amrayaa in waxa ay nimankaa aqoonta u leeyihin kugu yidhaahdaan aad qabato
aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa faraweyne xisbiga kulmiye biyo inuu ka helo ayuu sugayey iyo laalayskuba waanuna soo wadnaa kuwo kale waana la dhergi doonaa biyo waa laga dhergi doonaa